حريقي وشرعي دروها صدح ذا بلودنا احنا آمنسناها إنها شرعي دراك وحدنا ما أنت وحن هلي عدالة حربانة هاي أقل كيجي مقالة ده هالجيسان دي كلا حظية لكن صدح بلود هدي قاعدة وحن لي عدالة أوركتا وعدالة در حدنا إن لجوجو إذا يوحنا ضحين أي دم بكلي ظلم كلي يضاء شارهنا نيجا تاريخ إذا مالنا كجماعة قرنا كمان حسنا قرن دمسلمين السمال لنا يجرتان كذا مرنا بعن مالنا كجهريمت ما هنا حدي قفك ولبصده حب فكر كاجا يحب كذا دقوا وحقرتي ضد الدستور كي حرية القول وكوب النية أديكوا موادنا إن دونست قفاد أما قفر بتانكي ساتكون نقنيسيد قرن دمس تلقي السمال لو إن شاء الله هاي سيجارة وحنقوم هاد علينا يا حلبان سعيد عبد السمد سعيد عري قيس قرن إيوه حلبان أحمد خليف وأنا نقول أقان أحمد لباح وحن لا هاي وحاتين مسؤولين قرن كنتي دتكي دين صوت دورتينا ويدين مهديين شعب كيدين عدي فرتودي مي ايدين سوين waxaan ugu mahad celinayaa bahda saxaafadda intii nayla joogta Glide Media iyo inta inaga maqanba meel walba joogtaanba intii aan xidhnaa waxaad ahaydeen garabkayga waxaad tusteen idin ahaa mid idin ka mid ah waxaad ii ahaydeen cod intii aanan codka lahayn waad mahadsantihiin iskarabtaageeni waxaan idin leeyahay dadka way iska xignaa rajaynaya wax kasta oo qalooca ama ka khaldan dalkeena idinku wax ka qabataan war intadii qabateen in idinka badan ban ayaan inay ka baahanahay magan inay ka nahay cid u xidhnaan karta iyo cid sharci ku xadgudbi karta iyo sharci qalloocnaan kara iyo qof dambi loo sameyn karo iyo cid loo doonista qofeed loogu maleegi karo dambi iyo dulmi gudaha Soomaaliland ka dhacda suurtagal maaha markay dhacdana idinka ayaan mas'uuliyadeeda idinka rabnaa ta ugu weyna leh inaad sharciga lagu soo noqdo sharciga khaldan qabataan ka khaldan wax ka bedeshaan xindaabna aad u noqotaan runtii waxaad i tusteen inaynaan haddii in khaldanto inteena faraha badani ay ka wanaagsan tahay raalina inaan ka noqon karinin isdulmiye isku tacadi iyo isu awood sheegasho iyo sharci ku tumasho inaynaan raali ka noqonaynin waan inii mahad celinayaa dhammaantiin anigu sida la socotaan wajaala layga soo xiray wax inta ka badan imikeedin ma oranayo markii la xiray waaran lama sidan xarigaygu sharci daruha saddexda biloodna waxaan aaminsanahay inaan sharci darro ku xidhna maanta waxaan helay cadaalad xor baan ahay aqalkayga magaalada Hargeysa idin kala hadlaya laakiin 3 bilood haday qaadatay waxaan leeyahay cadaaladda oo raagta waa cadaalad darro macnaha adiga mar hadii intaas muddo 3 bilood ay cadaaladi ka maqnayd si kastoo cadaalad u hesho kulliba cadaaladu haday daahdo waa cadaalad darro waxa kuugu filan in cadaaladu ka soo daahday jeelashkii aan ka soo baxay iyo jeelasha Soomaaliland ku jira dad fara badan baa dulmiya cadaalad darro u xiran waxaan rajaynayaa dhamaantood inay cadaalad helaan in la dardargariyo laamaha cadaaladda iyo dadku waxyaabaha ay u xiran yihiin hoosna loo eego laamaha ay quseysanahay hoos u eegan dad fara badan ay xorriyadooda helaan oo waxaan mudnayn runtii u xiran ma ilaawi doono وانا كحومهاي dadkii jeelasha ku jira anigu maanta dan banaanka joogo warwarka ugu weyn ay haysta xawayaan kuwan xabsiyada kaga iimay waxa gabadha yar quruxda badan aad aragtaan waa bishaare baanday gabadha Ingiriiska ka timid ee 3 bilood iyo 3 cishe u xidhnayd wiilka uu dhalay Muuse Biixi ee jeelka lagu silcinayay ee jeelka Hargeysa ku jiray ee kaahin uu adeerka u ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland gabadhu adeerka u ahaa ee laakiin uu soo dayn waayay ee u xidhnayd wiilka uu dhalay Muuse Biixi wax baan ka oran doonaa insha Allah taala waxaan sidoo kale tayadana wax ka oran doonaa guddigii isxilqaan ee beesha garxajis odayaashii dhaqanka ee maalmo ka hor u ambabaxay boorta gacan libaax ee aaday jabhada dulmidiid maxaa ka soo baxay shalay way soo noqdeen xog baa ka soo baxday dhiibeen maxaa ka soo baxay maxaa u qabsoomay iyadana waa dul istaagi doonaa muuqaalka like saaro share gareeyo la wadaaga asxaabtina like ta dhalka si Soomaali dheer u gaar insha Allah taala gabadhaasi waa bishaare baanday waa wariyihii waxa weeye caan ka ahayd waa gabadhii Soomaalidu sida weyn u taqaanay Ingiriiska ayaa saldhigeeda ahaa sanadihii ugu dambeeyay degan tahay emergency ama xaalad degdeg ah ayay Itoobiya uga soo degtay kadib jigjiga soo martay wajaale ayaa laga qabtay wajaale markay marayso ayaa laga qabtay hooyadeed wiilay dhashay oo waxa weeye cajcajis iyo xogaa xanuun jiray bay degdeg ugu imaatay markay wajaale marayso ayaa la jeebeeyay ciidamo ka amar qaata wiilka Muuse Biixi ayaa halkaa ku jeebeeyay waa la soo dhaadhiciyay 13 jeer baa maxkamad la geeyay 3 bilood iyo 2 bari gudahood 13 jeer laba dhageysi bay ahayd
kow iyo toban jeerna waxay ahayd rumaan sidii muuqaaladeeni hore aan ku sheegnay ama ii waqti dheere micnaha ii waqti dheere dib igu celi baaritaan baan wadaa xogaan soo raadinaya kiisaskii lagu eedeeyey qarandumis baa kow ka ahaa wixii lagu eedeeyey oo dhan wuxuu jaabka wiilka Muuse Biixi kala soo baxay ay noqdeen gabadha ilaahay baa badbaadiyay laakiin waxaa kiis u noqday maadaama baasaboorkay wadata ingiriis yahay gabadha ingiriis ay tahay familkooda iyo saaxiibadeedii iyo dadkii waxa weeye warbaahinta ay kula jirtay iyo dadkii oo dhan iyo activist oo dhanna safaaradda ingiriiska laga dhaadhiciyay gabadhan inaysan waxba geysanin oo dambi ah ingiriiska ayaa soo bushgaraynayo intaa daba taagnaa sida iyada hadaladeeda aad ka maqlaysaan ama khudbadeeda aad ka maqlaysaan ingiriiska ayaa daba taagnaa intaasoo dhan warbaahinta Soomaaliyeed oo dhan baa garab taagnayd dowladda federaalka naftirkeeda waxaa la geeyay kiisas laga geeyay xafiiska ingiriiska uu ku leeyahay magaalada Muqdisho safaaradooda la geeyay adigu dadaal badan oo la maray wiilkii Muuse Biixi kiisaskii uu sameeyey waxa weeye maxkamadii waxba kama jiraan baa la yidhi oo waxaa la yidhi niyow han halaagin baa la yidhi meel walbaana looga soo hadlayaaye han ugu halaagin meesha wiilka yarka madow ee odayga shaqooyinkiisii iyo shaqooyinkii aan loo idbanin oo dhanba qabanaya ee shalayto waxa weeye aada ogeydeen muuqaalkii darhadaan inii soo geliyey iyo shalay iyo baraha bulshada ordaya wiilkii Sheekh Axmed ahaayee burucadda ganaxata intuu afduubo ciidamo ku afduuba yidhi daacish iyo waxa weeye al-shabaab uga dhawaaq buurta gacan libaax lacag $100,000 ama waxaan ku siinayaa baasaboor faransiisaan ku siinayaa ujeedadu maxay tahay markuu yidhi diyaarad baan faransiiska ka qaadanaynaa buurahan iyo laasacaanood ku burburino wiilkaasaas waxa weeye wixii oo dhanba jaabka ku wata kiiskuu rabo kuu samayn kiiskuu rabo kaa tiri suu rabo kaa yeeli suu rabo kuu falaad xumayn jeelkuu iska kaa geyn wiilkaa yarkaaba waxa weeye dowladdii wixii lalahaa dowlad weeye oo qaran baa jira lalahaa wiilkaa yar baa jaabka yoo ugu jira waa wiilkaa yar ee madow ee ordofka hadduu nin intuu kusoo boodo hataa aan iska celin karin weeye ayuu jaabka ugu jira Muuse Biixi baa dhalay maxamed Muuse Biixi baa la yidhaahdaa waa ninka xildhibaan Axmed Khaliif iyo maxamed Abiib iyo Barkhad Batuun iyo ugu hanjabaya mar walba waxa weeye waa ina dilaya ama waa ina xiraya ugu hanjabaya weeye ninkaas weeye ninka ay Somaliland u afduubantahay gabadha yar gabadha bal aduu ilaahay baan kugu dhaariyay ninka ka xishoon waayay gabadha foodleyda ka xishoon waayay gabadha yar ka xishoon waayay xataa waxa weeye in adeertee ka xishoon waayay yuu dhaafaya oday ma dhaafayo hooyo ma dhaafayo gabadh ma dhaafayo idmo ma dhaafayo cunug ma dhaafayo waa ninkii amarka ku siiyey sekada waxa weeye Hargeysa wiilkii lagu tooganaya yaraaya ardayga ahaa ciidamada amarka ku siiyo toogta yidhi wax walba waa toogta xidha weeye waa intaaba aqli kale male waa aqliga Muuse Biixi weeye wiilkiisa ugu dhiibtay weeye waa kaasba xidha oo dilow weeye waa intaa waa aqliga maanta Somaliland burburiyey waa aqliga maanta waxa weeye buurta waxa weeye xilligan garxajisoo Somaliland lahaa ay buurta u galeen ee ay u noqdeen waxa weeye jabhad ay u noqdeen aqligaas weeye horta aqliga meesha yaala ee jamhuuriyadda la leeyahay ee 32 sano lafihii la xumbaarsanaa laga dhaxlay aqligaas weeye horta aqliga laga dhaxlay lafihii la xumbaarsanaa 32 sano awowyadoodii iyo dadkii dhammaaday ee lafahooda aan la aasin jawaamada ilaa hadda waxa weeye xafiiska Hargeysa ay qotomaan xafiiska Hargeysa ay qotaan mar walba diyaarad ugu rareeyay waa lafadad oo waxa weeye 33 sano ka hor dhammaaday aqligaas horta maanta ayaa laga dhaxlay kaasa laga dhaxlay faa'iidadiisa halkaas ay tartay bishaare baanday marka mid baan leeyahay ilaahay ku boogdhayo adigu gabar Soomaaliyeed baa tahay qabiil ma tihid qof la yaqaana tahay warbaahinta meel fiican baad kaga jirtaa taariikhdaada waa la hayaa waa naqaanaa sidaas ku soo shaqayn jirta waa la garanayaa Soomaali inay midowdo oo mid noqoto oo waxa weeye Soomaali tahayna dadka aaminsan baa tahay aad baanad ugu mahadsan tahay dambina kumaada samaynay Somaliland Soomaali weyna dambi kamaada gelin cidna dambi kamaada gelin laakiin waxaa ku helay dulli watay oo gun ah oo gun u dhalay oo doqon u dhalay oo midgaan u dhalay ayaa ku helay kuwaasaa ku helay 3 bilood iyo 3 bari inaad jeel dhex jiifto adoo quruxdaa leh adoo waxa weeye qaran aan weligii waxba dambi ka gelin adoo Soomaali oo dhan dambi ka gelin adoo midnimada Soomaaliyeed jecel adigoo waxa weeye deegaankaadi iyo dadkaadi mar walba garab taagnaa oo loogsoon yahay oo mar walba tooshka ku ifinay war dadka u gargaara lahaa in sidaa lagu galo gun aba ku helay midkaan baa ku helay
aan aqli gelin baan ku helay oo waxa weeye isagii aabihii toona aan aqli lahayn baan ku helay ilaahay ha kuu boogadhayo wixii kugu dhacay allah ha kuu boogadhayo ayaan ku leenahay insha allahu tacaala waad ka soo kaban cadaaladna waad heli doontaa walow maanta banaanka aad imaatay kuguma filla 3 bilood iyo 3 beri oo aad cadaalad aan ku xidhnayd oo jeelun iskaga jirtay cadaaladeeda waad heli hagaadhe waa lagaaga dambayn jeelka waa lagaaga dambayn insha allahu tacaala muuse biixi iyo wiilkiisaa kaaga dambaynaya insha allahu tacaala iyo inanka inkaa afka maroorsan ilkaha faraqsan adeerna kuuma ahe waxa weeye nimankaa dulmi wadayaasha kabaqaadka u ah ayagaa kaaga dambayn insha allahu tacaala adkayso haddii ilahay yidhaahdo intaasi bishaare banday baan ku dhaafayaa ilahay baa mahadle hadday banaanka imaatay dhanka kale odayaashii la diray ee maalmo ka hor buurta gacal nibaax aaday waxay la kulmeen jabhaddii dulmidiid oo fureen uu madaxweynaha u ahaa ama guddoomiyaha u ahaa ama hogaanka u ahaa sidaad rabtiin baa u qaatee jabhaddii odayaashu way kasoo laabteen waxayna soo celiyeen jabhaddaas is-afgarad la-aan inay kusoo dhammaatay bay soo celiyeen walow qaar ka mid a ay leeyihiin qodobay soo sheegteen jabhadda laakiin ila wareedyo jabhadda aan ka helay waxay sheegayaan wax heshiisa ma dhicin heshiis la-aan baa lasoo laabtay muuse biixina damaanad lagama helayo wiilashaa buurta looga soo dejiyo sababtoo muuse biixi waxaa ka go-an wiilashaa saraakiisha ee buurta saaran ee dulmiga ka kacay in tiirka la joojo la laayo ayaa ka go-an marka damaanad lagama hayo odayaashii marka way soo laabteen waxa weeye waxaa socda teeshan kaleeta magaalada hargeysa ka socdo ciidamadii ugu badnaabaa sii qulqulaya wixii kasoo kordho wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa jabhadda waxaan leeyahay waad guulaysateen waad diideen dulmi waad ka dhiidhideen tacdiyooyinka iyo dulmiga lagu haya shacabkiina horay u socda ayaan leenahay horay u socda ayaan leenahay waa shirqool ninkii buurta inaga soo dejiyo noolaan mahaya haddaba ha ogaado ma noolaanayo meeluu ku noolaanaya ma jiro tiirka ayuu saaran yahay marka waxaa weeye naftiina ilaashada oo dhulkiina ilaashada oo dadkiina ilaashada oo diintiina ilaashada oo qoomaluudnimada iyo balaada nimankan kusoo hogaamiyey ilaa aad ka taqalustaan ood kursiga dhaafisaan halkiinaa saarnaado weliba halkan ka bilaaba insha allahu tacaala ilaahayna waynagu guuleynaya waanad guuleysanaysaan insha allahu tacaala guuleysta ayaan leenahay jabhadda beesha garxajis iyo inta taageersanba iyo soomaali weyn oo dhan ba inta dulmiga diidan ee dulmiga neceb ee midnimada jecel guul iyo gobonimo ayaan leenahay